loofkana yaqaan laandheere jacaylada aydhbay ka muxuu maxaad ka ogtahay inay Farxaan Yare iyo Rasmi Reis mar kale dib isku laabteen maxaad ka ogtahay inuu nimcaan Hilaac heshiis rasmi ah dhex dhigay labada lamaano oo muddooyinkii ugu dambeeyay isla sanadka 2020 intii qaybtiisa dambe ku kala maqnaa Hinaase iyo Dudmo oo warqadana ay kala qaateen balse haddana ay noqdeen lamaano curdaya oo mar kale isku soo laabtay warbixin dhameystiran ayaan hayna magacaygu waa Cabdulla Xuseen Cabdulla Deeqsi waxaan ka codsanayaa saaxiibkay qiimaha loo inaad muuqaalka leeg saarto sina share gareyso barteena YouTube ka Cabdulla Deeqsina ha subscribe noogu samayso waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka sababtoo ah waxa tahay markasta dhiirigeliyahayga amba qofka aniga markasta dhiirigeliya waa adiga kan daawanaya muuqaalka amba daawan doona waad ku mahadsantahay saaxiib daawashada muuqaalka xushmad iyo karaamo ayaan ku haynaa balse inta yarka ay leegta shareta iyo subscribe tan ugu caawi anaga ilaawin marka hore waxaad ahayd saaxiibkayga dhabta ah amba walaalkayga dhabta ah balse waxaan mar kale dib u soo cusboonaaday marooskii kale lamaanihii kala tagay ee Rasmi Reis iyo Farxaan Yare kuwaasi oo markii ay Boorama tageen sheegtay inuu ceejin iyo fadhiyo la kula kacay Farxaan Yare markii uu geeyay gurigoodii oo ahaa Boorama isla Farxaan Yare ka hadlaynay waa kan sawirkiisu idin muuqdo amba inta badan had ku taqaaneen heesaha yar ee hanan codkarka ahayn heesaha yar ka qaadi jiray waa wiilkan oo soo shaabxay markii uu guursay isla Rasmi Reis oo nolosha la wadaagay Rasmi Reis oo fanaan inta badan isteelka aad u xiisaysa ana fanaan inta badan jacayl muujiso iyo farxad muujiso ayaa ku kala cararay Hinaase iyo Dudmo muddooyinkii ugu dambeeyay balse si kastaba ha ahaatee waxa ugu dambeeyay la shaaciyay amba maalmahan ugu dambeeyay baraha bulshada la isla dhexmaraya inuu nimcaan Hilaac oo Farxaan Yare isku meel ka soo wala jeedaan amba ay ka soo wala jeedaan dhinaca iyo magaalada Boorama haweenkiis rasmi ah dhex dhigay mar labaad Farxaan iyo Rasmi Reis ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay soo qaadaysay heeso hay ku diganaysa Farxaan Yare halka isaguna Farxaan Yare soo qaaday isla isaguna heesa calaacalaha waxayna ugu dambeyn Farxaan Yare aniga kula hadlay laftarkayga waxaan kula kulmay isla magaalada Boorama ninkii oo cagaha iyo kabaha boorka ka muuqda hadiyaabayso oo Farxaankii taqaanibi ahayn ugu dambeyn markii ay kala tagay Rasmi Reis waxa uu soo xidhan jiray short iyo shaadiro hurtufa isagoo oo aan moodinba Farxaankan hadda sawirkiisa ku muuqdo waa uu baabay wiilkii waxauna aad ugu baahan yahay Rasmi Reis inay mar kale u soo laabato balse alxamdulillah waxa mar kale lamaano curdaya amba dib isku soo laabtay Farxaan Yare iyo Rasmi Reis oo ah laba lamaano oo dadku aad u xiiseeyay balse walaalkayga sharafta badanow waxaan haynaa cadeymo dhameystiran iyo muuqaal ku muujinaya inuu jacaylkii mar labaad cagiisa ku istaagay balse waxaan iska codsanaynaa videoga like saar sina share garee nalana dhageyso muuqaaladan nalana daawo waanad ku mahadsantahay saaxiib daawashada muuqaalkeenan waad ku mahadsantahay marnaba aan waayid abid waa heesaha macaan oo soo qaaday Farxaan Yare oo ku soo qaadayo barta TikTok adaa loofkana yaqaan laandheere jacaylada aydhbay ka muxuu dareenkayga dulshaa waa isla lamaanihii oo mar kale heesa macaan isku soo qaadaya amba hawada isku marinaya amba sidoo kale hadaan u dhugno barta wax kastiba saashay ee TikTok ba isku marinaya ereyada jacaylka waa isla markii heshiiskooda curdayga ah balse iminka ugu dambeyn waa guuleystay waxaana mar labaad la sugaya xafladda arooskooda ka dhicin doonta magaalada Nairobi ee cariga dalkaasi Kenya halkaasi oo xafladda arooskooda ay ka qayb galayaan dad waaweyn oo baraha bulshada magac ku leh iyo fanaanin caan ah oo kamid yahay fanaanka dhexdhexaadiyay ee heshiiskooda dib u soo cusboonaysay isla nimcaan Hilaac oo ku nool carigaas iyo Mareykanka kaasi oo mar labaad gacan weyn ka geystay arooskoodu inuu soo laabto waxaan leenahay saaxiib hadii aad sidan u dhexdhexaadisay ilaahay adigana ku siiyo wax dadkaaga markaad xumaato ku dhexdhexaadiya
tani waa xafladii lagu soo dhaweynayay jacaylkooda cusub oo rasmi rays ku qabatay magaalada Nairobi, halkaasi oo ay ku soo casuuntay dad aad u tiro badan, kuwaasi oo sheegtay inay ahaayeen kuwa gacan dhamaantood ka geystay iyo taageerayaasheeda oo aad hay ugu soo xidhnayd muddadii ay ka maqnayd Farxaan Yare ee cilada dareemaysay. Ambahan ilaahay soo garab istaagay lamaanahan ayaa kala tagay amba kala cararay isla sanadkii tagay 2020 kuwaasi oo safaaradaha kala qaatay furiinka warqadoodana loo kala qaaday, balse iminka ayay dib u soo laabteen. sidaan wada arkayno amba sawirkan ka muuqataba labaduba waxay ahaayeen laba wiil oo ka soo wada jeeda magaalada Boorama, gaar ahaan xaafadda Xaasleyda ee magaalada Boorama, waxayna ahaayeen laba walaala balse markan ayay gacan isa siiyo saaxiibtinimo. Simcaan Hilaac oo ahaa nin barta fanka magac weyn ka sameeyay ugu dambeyn u dhoofay dhinaca cariga Mareykanka ayaa mar labaad dib isku soo celiyay, waxaana la sheegayaa inuu lacag xataa ka bixiyay. balse saaxiib aragtidaada waxaad noogu reebi kartaa commentiga, videogana like saar sina share gare. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka.